maalin dhexdaasa madaxweynaha deegaanka Soomaalida wuxuu la shiray ururadii mucaaradka ahaa iyo ururkii on left ah idinka aad samaysateen markii uu shirkaas uu dhacay waxyaabaha laga hadlayay waxyaabo badan buu ahaa laakiin sidaan xogta ku hayno dowladda maamulka Abiy wuxuu go'aansaday weji ah in mucaaradku uu percentage uu ku lahaado percentage kaas oo ah ilaa la leeyahay waa 20% iyo wixii la mid ah arrintaas sidaa ah maxaad deegaankeenna 20% noocee ayaad siinaysaan waxaad leedihiin intaasoo kursi aynu siinaynaa intaasoo xildhibaan baa lahaanaysaan maxaase ka jira hadda waqtigan xaadirka ah magaalada Jigjiga biyaheeda consistent ma aha korontada markay go'do ma jirto generator ayaa loo dhisay ilaa hadda gaaska laguma shubo generator dadka oo markay korontada go'do gaas laguma shubo line gooni ah oo koronto ah ma haystaan biyihii aad ka sheekeynaysaan leedahay the most successful dhibkiisu leeyahay dareenka shacabka ku jira waxa weeye qabri dahare iyo qorraxay saddex reer baa degan saddexdaas reeree degan mas'uuliyadda laba reer waxay leeyihiin annaku qorraxay haddaan joogno qaybteenna ma helno haddaad leedahay labadaas qabiile kaleetana ii sheeg waan kuu sheegi laakiin waxaan ka wadaa adigana waxay kugu dhaliilayaan in dadkiina ay isku wada dhaceen oo laiswada nacay ma waxaad leedahay qabri dahare iyo qorraxay dadka wada degan wax dhibaato ah oo ka dhex jirta ma jirto biyaha Jigjiga ayaa aad laguga eedeeyaa contract aanan qofna bidirin bad anaa ku sheegay waxa qoraaladii baa kuga eedeynaya iyo mataqaanaa waxaad waa lagu eedeeyaa waa iska out of nowhere haddaba anaa kuga eedeynaya waxaan kuga eedeynaynaa in aad si toos ah aad u bixisay contract biyo ah aad u siisay Chinese-kii iyadoo oo aanan bidding process la marin Ethiopia sharcigeeduna uu dhahayo waa in open bidding la sameeyo waxaa jiray wax emergency ah aan dhameeyo ma wax emergency ah ayaa jiray Jigjiga ka jiray oo kuu khasbayay inaad contractigan aad bixisid iyadoodan bidding samaynin maxaa keenay haddana iyadoo 5% shaqadii ay qabanayeen ay qabteen inaa haddana aad siisay lacag 150 milyan oo kaleeto aad ugu kordhisay waxa weeye waxaa intii aad xukunka hayseen hal qabiil baa goboladaas oo dhan maamulayay dad badan waxay ku doodayaan in saami qaybsiga dadyooga qaarkiis lama siiyo sidaas aawadeed ayay deegaamadii khilaafyo badan oo qabiileed idinku siyaasaddiina aawadeed ay dadkii isku wada dhacayaan ama ha ahaadaan kuwa deegaanka gudihiisa jooga oo qabiil ka hadlaya oo dadkii kala qaybsameen marka arrintaas dadkii inaad kala qaybinaysaan oo mar walbaba hal group magaalo walba ama gobol walba hal group aad kor u qaadaysaan kuwa kaleetana aad hoos u dhigaysaan maxaad uga jawaabaysaa waan gartay hadda waxaan ku leeyahay gobolka Shabeelle waxaad leedahay afartii qof ee isku daba bedeshayba waa hal group uu noqonaya sad kala qofka kuwa loo sameynaya kan inta badan gobolka Shabeelle dadka hogaamiya Shabeelle kaliya waxaad example baan ka wadaa laakiin nogob waa sidoo kale Shabeelle iyo nogob inta badan ba يعني political arrangementgan hadda jira sadadka la kala qaybiyo constituency-da la kala siiyay qayb ka mid ah gobolka tagay hadda tusaalahan gudoomiyaha gobolka Shabeelle matalaad siyaasadeed dad loo xisaabinayo weeyaan haddii heer deegaan wax iska bedelo hadda uu iska bedelo waad arki doontaa uu isbedeli doonaa hadduu heer deegaan wax iska bedelo shaxdaas way wareegaysaa laakiinse waxaan waxa weeye political representation hal waxaan rabaa inaan galo gobolka ka soo jeedin an iyo magaalada aad matashida ee qabri daara ah waxa ugu badan ee lagu eedeynayo wasiir waxa weeye kama warhaysid deegaankaaga fargelin badanna waad samaysaa labadaas isqabadsi واستيدوين ده يوم بالله ما حتى لها waxaa lagugu haystaa kama warhaysid oo mataqaanaa biyihii qabri dahare ka baxayay ee tegayey ilaa iyo dhanaan aad ugu tala gasheen lacag markii waa contractigaaseeto ninkii haystay
markii way ka dhacday inshuransiga maadan inshuransigiisii muunan cusboonaysiisanin 100 milyanna deegaanka way ka baxday ilaa haddana lacagtaas lama hayo buundooyinkii qabri dahare soo gelayay geerigo'an weeyo way jaban yihiin 7 sane lasoo dhaafay kama warhaysid taas baan ka wadaa faragelintana dhinaca siyaasadda waxa weeye waxaa leeyahay meeyarka adiga gacanta ku haya qof walba oo deegaankaas laga soo dooranaya qofana adiga aadan ogoleen meesha ma iman karo dadkii way kala qaybsameen taas weeye meeshaan ka hadlayo raallina ahow waad mahadsantahay waan inaan aad deegaankii dadkiisaba aynu aqoonin oo daacada tahay hoostan baa lagaaga dhiibay su'aalaha dadkii lahaa inay soo raacaan baa fiicnaan lahayd laakiinse ayagaan u jawaabi adiga mehe aan ku horeeyo constituencygaasi waxoogaa waa iska gardarro siyaasadeed weeyaan in meeshaasi siyaasadeedoo keliya aniga laygu soo koobo 25 xildhibaan baanu kaga soo 23 xildhibaan baanu kaga soo baxnaa gobolka Qorraxay 5 baan jeclahay markii federaalka lagu daro gaar ahaan constituency sub constituency haddaad tiraahdo aagaasi degmooyinkaasi qabri dahri iyo wixii la halmaala 17 xildhibaan meelahaasaa jooga ugu yaraan maxaan ku dhahay magacaabis heer deegaan oo 6-7 gaadhaa joogta waxaa kaloo jooga qaab dhismeed degmo ilaa iyo 5-7 degmaa ku taalla waxaa ku taalla maxaan ku dhahay maamul magaalo يعني قاب اسميت دولادات عد والبا مسؤوليات gaar ay gacanta ku hayso fara badan oo ballaaran baa jirta cid kasta oo qaab dhismeedka dawladeed xilka haysana equally waa constituency waa matalaad siyaasadeed oo constituency ay ku jirta ay matalaysaa marka wax uun Cabdiraxmaan Hurre keligii khuseeyo oo aan maxaan ku dhahay asagu wax la weydiinay asagu waa in mataqaanay maaha waxa kale inta dheertay nidaam dawladeed iyo meesha ka jira tala aniga ii gooni oo kaliya go'do oo qabdahre iyo Qorraxay iyo deegaanka gaar ah lagu maamulo ma jirto iska daa aniga Mustafa kaliya tala gaar ah oo ku maamulo constituency ka soo jeediya dhagax buur ayna jirin constituency buu leeyahay ilid uu la tashadaa jira dad siyaasiyiin oo xil lahayaa jira kuwa banaanka jooga jira marka si yar over simplification baa iga yar dhexmooda aan arkaa waa yahay hadaba biyaha aan soo noqon sida hadalka loo dhigayo talada kaliya wax gacanta iigu jira waa soo dhaxmaray aniga waxaan ku sheegayaa inaan qof walba wareysto wax walbana soo xogaal ka noqdo dareenka shacabka waan ku weydiinaynaa su'aalaha qaarkood ama contextkooda la yar waayaysa ama sensitivity-gooda cidda su'aasha ku weydiinaysa dareenka ay ku wadaada miyaadan fahmaynin marka waa laga yaabaa inaad adigu aadan it's okay adiga waad ogasha waa ogolaa inay dhaliishid laakiin waxaan ku sheegayaa aan dhameeyo dareenka shacabka ku jira waxa weeye qabri dahare iyo Qorraxay saddex reer baa degan saddexdaas reeree degan mas'uuliyadda 2 reer waxay leeyihiin annaku Qorraxay haddaan joogno qaybteenna ma helno haddaad leedahay labadaas qabiile kaleetana ii sheeg waan kuu sheegi laakiin waxaan ka wadaa adigana waxay kugu dhaliilayaan in dadkiina ay isku wada dhaceen oo la iswada nacay ma waxaad leedahay qabri dahare iyo Qorraxay dadka wada degan wax dhibaato ah oo ka dhex jirta ma jirto horta qabri daharada anu constituency-yada saad u kala ablaableynaysa ma aqaano meesha 2 reer ka dhigay meesha 3 reer ka dhigay ma kala garanin أنا كل شيء قدرت. أنا كيران كرانو كونستوينسيان كور هدي لو قاده قبل كاسي حافظ غير بقى قيس بقى يعني أكيد سومالي لا فهد الأبلاب اللي جري قيس بقى almost majority سوري لكاه دقن أيها هوست هدي الله سقادنا صدق يا فريشان يتوبوا يكبرنانا يعني وبصلوا لا يمشي أول شيء تكتو ترى كبلان بعدت كده سب كونستوينسي سب identityو وحوسا إيمانا يلا فيه حوسا ده محتاج يعني بكرت أنا وأنت كوجا هاي قبل كقرحي وجابين تكسوت يده وجابين تا isugu tolan ee u wada shaqeysay teamka u ah weeyaan waa gobolka Qorraxay markii la eego dadka elidka ee gobolka ka soo jeedana iyo hogaaminta siyaasadda ku matashana dad isku xiran dad way jiraan siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda oo nidaamkii hore dadkiisii ah oo dadna siyaasadeed kuma qoran banaanka joogoonde hadda taladan hadda jirtaan qaybkan way jirtaan kuwa meel kale oo xil kale ka raadinayo mucaarad ah oo constituency-ga ka soo jeedana way jiraan هذا لكيس الشعب وينها الدجاج كسر شيء قبل كا هي السياسيين السياسة كم تشيء حكومة كم دي
dad dhexdooda farqi ka jiro oo ayagu isla oo aan mataqaana xiriir ka dhexaynin ma ahee xiriirka ugu fiican iyo maxaan ku dhahaa wada shaqaynta ugu fiican baa ka jirta madaxda dhaqanka la shaqayna xildhibaanadan la shaqaynaa maamuladan la shaqaynaa ganacsatada iyo dadka iyo qaybaha kala duwan baan la shaqaynaa ma garanayo dee cidda exactly cid walba oo meesha joogtana way qanacsan waad ka jawaabtay su-aashii biyaha igu soo noqo arrinta biyaha igu soo noqo waa sax weeyaan dee biyuhu wata dee shaqo kasta dee cid hadda maanta gacanta ku hayso mas-uuliyaddeeda hayso in wax laga weydiiyo ay institutionkaas dee cid baa maanta spokesperson u ah waa sax xafiis aan waa soo maamulay shaqo aan ka soo qabtay dee kasoo tegay anuu hawshaas shaqadii maanta cid bay waqtigaa joogtay contractigan waqtigaa joogtay ayaa ku soo doonaa may absolutely taa khalad baa ka jira xafiis biyo horta anu kama shaqeeya hadda su'aalaha xafiiska biyaha laga qabiyo mashaariicda xafiiska biyaha uu maamulo mas'uuliyiinta xafiiska biyaha hawlwadeennadiisa ayaa ka jawaabaya aniga eerin bay waxaan laakiinse ku dari karaa maadaama anigu aan mas-uul meesha soo maamulo xog ogaalna aanu ahayo siyaasad ahaanna aan la socdo shaqo dowladeed iyo xisbi on aan kor joogana ay tahay xafiiskaasi waxa weeyaan anigu muddo 2 sano aan joogay sanadkii 2019 ilaa 2021 yaan joogay 20 bilowgiis baan ka joogay muddada 2 sano xafiisyada muddo 4 xafiisaan soo maray xafiiskii ugu dhib badnaa ee aan soo maamulo ah sababta ahaydna waxa weeyaan waa xafiis baahiyaha xasaasi ah ka jawaaba biyuhu way ka duwan yihiin baahiyaha kale bini aadamka oo dhan adeegyada deegaanku markaan nimid gaar ahaan markaan xafiiska tagayay waxaan ugu tagnay kii reportiga yani statisticska dawladdu ay sheegayso 89% magaalooyinka dadka ku nool inay biyo ku filan haystaan 78% dadka miyiga ku nool biyo ku filan inay haystaan waa coverageka sector coverageka meesha maray waa arrintii aan ugu nimid waa 90% korna waan soconaa arrintaas inayna jirin cid walba ay ku qanacsanayd laakiinse official data okay waan ku maqlaynaa waxaan u maleynayaa korontadii baa kaa tagtay laakiin waxay official data lagu matqana hawsha lagu challenge gareeyo oo la dhaho maxaan ku dhahay hawshaasi ma jirto meesha meena oolin sidaa daraadeed baa national wash inventory kaliya ma wadanka dhan baa laga sameeyay national wash inventory baa la sameeyay 78% miyiga meesha ay 18 bay ku soo dhacday 89% magaalooyinka meesha ayna 20 bay ku soo dhacday halka marka waxa ka soo baxday dadka adeega oo haysta ee noleenahay deegaanka dadkiisii adeegaas oo haystay in laga run sheego talaabadii koobaad ee qaadnay ahayd shaqadii ugu horreysay xafiiska biyaha ka qabtay ahayd waa marka kow meesha waxa ka soo bilaabay talaabada ku xigtay waxay ahayd xafiisku sanadkii koobaad oo xogaa garanaysa transitionka lagu jiray iyo shaqadiinka ka soo horeysay loadka contractska uu gacanta ku hayay iyo miisaaniyadda sanad walba loo qoondeeyo wax isu dhow ma ahayn يعني ميزانية هشيسية أظفر بدن أو شقة أو كونتراكتيو عند كهاي سنة والبا أنا وحنا قلت فيها 1.1 بليون لا allocate كريه سنة كا أوكي كونتراكتس كو كتيران 5 بليون بهاي اسمع قبانيس شقوين كعد عند كهاي صح هذا قبانين 5 سنة هل شقة عزب هذا قبانين وحدي كوسية اللي كلية إن عطنا مسك هو قادنيسا talaabadii koobaad ee marka xafiiska hawlfulin yani teamkii managementga meesha ugu tagay dadka hawlful markaan briefing kala qaadanay waxay ahayd inaanu shaqooyinkii dib u qorsheyno structuring aan ku sameeyno contractorskii waxaan meesha ku haynay shaqooyinka naga dhamaan kara ee criticalka gaar ahaan meelaha population centerska ee magaalooyinka ka jirta inaan isku soo koobno contractiyo badan oo la galay oo meesha ku jira aan meesha ka saaro mashruucan marka hadda aad inta badan aad soo hadal qaaday iyo soo horreysisay waa mashruuc multi village water scheme oo magaalada Qabridahar duleedkeeda uu ku yaalo magaalada Qabridahar ku yaala sourciga biyaha laga qaadayo 85 kilomitir tuulooyin ku kala yaala oo degmada Qabridahar degmada Laasarkeyle ilaa iyo qabaleed kamid ah degmada Dhanaana uu tagayaa waxa naga horeeyay oo anagu meesha ugu nimid conceptigana in multi village water schemes biyo mashaariic biyo gelineed oo tuulooyin badan biyo siinaya oo tusaalahooda uu ka bilowday kan birqod ka jira mid meel mugweyn la yiraahdo oo ilaa iyo xamara taga ku kalo ilaa iyo dhulwaali aagana concept marka yar xogaa nooc biyaha dadka loo gaarsiinayo gaar ahaan meelaha biyuhu ka jirin meel biyo ka jiraan inta biyo looga soo qaado farsamo la isticmaalo dhismayaal badan iyo aad operational aad complex u yahay ee ahayd mashruucaasi intaan aanu meesha imin ba horta iyo heshiiskiisa la galay
oo shirkadda lala galay waan gartay waxaan rabaa waqti su'aalaha jawaabta noo soo gaabi wasiir dhowr hal sano oonan anigu aanan xafiiska joogin buu mashruucaasi mashruuc heshiiskiisa lagu jiray shaqadiisuna ayna dhaqaatinahayn dhibaatada ugu weyn mashruucaasna waxay ahayd gudahan u gelayaa waxay ahayd mashruucaasi horta tiyoon miisaaniyad ku filan ahayn baa heshiis la iska galay 500 milyan ku dhowaad buu ahaa sanadkii koobaad advancega 30% advancega 140 wax buu noqonayaa advancega 30% ah xataa looma haynin sanadkaas saas ka dhamaaday sanadkan anigu ugu imid mashaariicda markaan dib u rishfal gareynay criteria mashaariicda u sad gareynay mashaariicdii yaana ku dhacday waa in la kansala gadbiso biyaha jigjiga ayaa aad laguga eedeeya contract aanan qofna bidgareyn bad anaa ku sheegay waxa qoraaladii baa kuga eedeynaya iyo mataqaanaa waxaad waa lagu eedeeyaa waa iska out of nowhere haddaba anaa kuga eedeynaya waxaan kuga eedeynaynaa in aad si toos ah aad u bixisay contract biyo ah aad u siisay Chinese-kii iyadoo aanan bidding process la marin Ethiopia sharcigeeduna uu dhahayo waa in loo open bidding la sameeyo waxa jiray wax emergency ah aan dhameeyo ma wax emergency ah ayaa jiray jijiye ka jiray oo kuu khasbayay inaad contractigan aad bixisid iyadoo aadan bidding sameynin maxaa keenay haddana iyadoo 5% shaqadii ay qabanayeen ay qabteen inaa haddana aad siisay lacag 150 milyan oo kaleeto aad u kordhisay Ahmed waxyaalo fara badan oo xogtaada ay social media tahay dib badan baad kala kulmay maya niyo social media ma ahe official version horta waxaan oo dhan waa wax qoran oo minute loo la yaqaano heshiisyo la galo oo contractigan sidoo ku baxay xafiis bay yaalaan xogtidee ana xafiiska inaan afki u hadlayo noqdan waan diidanahay mooyaane xogta sidee taan kuu sheegi karaa mashruuca jijiga ee biyaha mashruuc si official open bid oo loo tartamo international bid waliba ah local ma ahayn ku soco waxaan saarayaa inaan saaro bidinkii iyo wixii meeshii yaalo dhan waa sax waa loo tartamay official baa loo tartamay waxaan iska oranaya ma aha waxaan rabaa inaan caddeeyo ayaan doonayaa waxaan waa minute hal minute oo kamid ah xilliyadii aan mataqaanaa mashruuca contract administrationka lagu jiray minute waa kan contractigina waa kan minute kan laptopka igu ku jira wax cusub anaa saxiixaya marka waxaan rabaa inaan ku ogaado markaa dhehaysa waxaad qortay iyo sida open bidka ahaa iyo waxaa la iska dhahayo inaan ka saara ayaan rabaa meesha laba arrimood weeyaan mashruucani bidkiisa see lagu bixiyey contractigiisa si lagu bixiyey open bid buu ahaa shirkadaha usoo tartamay shirkadihii usoo tartamayna middan ku guulaysatay ee shiinaha ka mid ahayd tan shiinihii ku guulaysatay lacagtay ku soo tartantay iyo lacagtaan anagu u haynay baa kala duwanay negotiation baan la galnay meesha horta inay dadku fahansaneen kaa weeyaan wax birina maadan sameynin warqadana adiga u qoray oo dhahaya kaalaya shaqadan qabta wax birin ah xagee lagu sameeyey oo cid approve garaysay jirta tameeda taada waxaan aniga adigu ku wada murmi karnaa waxaan hadda documentigana haysa waa minute ah xilli ay shaqada waan joojinaynaa oo mukharish naguma dhaxeen oo dib loo waa laba weeye midna waxa weeye mataqaanaa midkan documentiga mudane mid waxa weeye kan ma aha kii ay ku diideen kan waa tii contractiga aad ku saxiixaysay aad ugu yeedhaysay aad dhahaysay kaalaya ka minute-ka aad ka hadlaysid waxa weeye markay diideen waa kan weeye ka minute-ka aad ka hadlaysid waa laba documenti oo kala duwan ayagoo ku dhegeysanaya ku soco 6 shirkadood oo 6daba hal baa Ethiopian ka ahaa oo Chinese 5 ay ahaayeen yaa mashruucan u soo tartantay nooca ugu soo tartameen waxay ahayd dhammaantood waa la invite gareynaya initially the bid for invitation baa loo sameynaya waa la invite gareynaya markii la invite gareeyana waxa la leeyahay bidka noocaas oo kala u soo tartama way tartamayaan meesha inuu tartan jiray in la iska siiyay yaa labadaas aska ka dhaxqasan way u tartameen dad baa la soo tartamay way ka qiimo hooseeyeen kuwani waliba qiimaha ku soo tartameen lacag 1 bilyan ay ku soo tartameen xilliga lacagta 1 bilyan ee heshiiskana waxaan kula galay 750 milyan baan kula galay negotiation waliba aan approval uga helay cabinet-ku ayaan dhowr dadkii soo tartamay lacagta ku soo tartameen iyo lacagta anagu u hayna way kala fogyiin maxaan sameynaa list bidderka halala negotiate gareeyo direction xukuumadda intaan ka soo qaadanay yaanu la fadhiisanay ayaga oo ku niri dhageysta 1 bilyan waa ku ugu hooseeyay kuwii ka sarreeyay oo 2 bilyan ku soo tartamay 3 bilyan ku soo tartamay 1 bilyan bar ku soo tartamay maana kuwa ayaga maana approach gareyninba waa the list bidderkii baan la fadhiisanay
waxaan ku invite gareynay inay nala negotiate gareeyaan warqadan aad hadda haysan waa tii ahayd kaalaya nala fariista qiimaha aad soo gudbiseen aan ka wada hadalno qiimaha soo gudbisteen oo 1 bilyan aha iyo qiimahan anagu markaa ku rabnay 750 baan heshiiska kula galay waana markii loo eega contract administrationska waa wado open oo banaan weeyaan waana wax waadixo xukuumadda ay ogeeyda waxde sharciyo loo marayo oo managementkiiba ansixinayo oo waxde wasiir kaliya intuu qoro kaliya heshiis la galay ma jirto waana contract administration procedures mid kamid ah weeyaan aan kuugu sii kabo shirkadani dhowr markaan heshiiska la galay agajiid bay ku galeen laakiinse maadaama shirkadan shaqo kale noo hayeen shaqada mashruuci biyaha ee goday kuwii noo hayay weeyaan shaqadoodu way fiicnaayeen capacity-goodu way fiicnaayeen waxaan ku shaqaansanay shaqadanna waad noo haysaan oo hadda aad dhamaynaysaan shaqooyin kale oo idin siin doono oo aad mataqaanaa aan ka tixgelin karnay way jirtaan qiimahan hadda aan aad soo gudbisteen wax naga farageliya 750 milyan baan heshiiska aanu kula saxeexay number 1 performance-goodii iyo wax walba iyadoo evaluation fiican lagu sameeyay ayay wax walba dhamaadeen hadda waqtigan xaadirka ah magaalada Jigjiga biyaha consistent ma aha korontada markay go'do ma jirto generator ayaa loo dhisay ilaa hadda gaaska laguma shubo generator dadka oo markay korontada go'do gaas laguma shubo line gooni ah oo koronto ah ma haystaan biyihii aad ka sheekeynaysaana leedahay the most successful dhibkiisu leeyahay mashruuca biyaha ee Jigjiga banaanka waxa laga leeyahay iyo xaqiiqadiisu way kala duwan yihiin waa run magaalada Jigjiga mashruucaasi baahideedii biyaha ma kabar garaynin xilligan biyaha mashruuca biyaha qorsheynayna magaalada baahida yaana biyaha ay maalinka haysato yaana biyaha coverage-ka magaaladu 25% buu ahaa mashruucana waxa loogu talagalay inuu 25% ku soo kordhiyo 150 gaarsiiyo gabigeeda dhanba mashruucan iyo gundhigii haro isoosto la isku daray 50% baahidii magaalada inuu xalliyo loogu talagalay mashruucana mashruuc emergency ah oo xaaladda degdega ee baahida biyaha lagu xalinayaa sustainable water source oo magaalada baahideeda ka fayn kara cid qaadatay ma jirto markuu dhamaaday hal caqabad baa kala kulantay de xogtaasi waa xog aan intaan ogaa kaaga sheekeynaya de cidii mandate kale ee hawsha ma taqaana hadda eega shaqada u tahay inay sharaxdo may waan ka hadli doonaa waan warsan doonaa dhowr hadda magaaladu gebigeeda dhani waxay ka cabtaa mashruucaasay ka cabtaa mashruucan 25% bas ku soo biiriyay biyihii magaalada sourceyadii ka sii shaqeynaya oldiga ah ee ka horeeyay ee sii jiray ee mashaariicdii hore ee wajiyadii hore laga shaqeeyay ya biyahoodii meesha ka baxeen biyo yareeyay quantity laga helayay iyo quality laga helayo meesha ka baxay hadda magaaladani waxay ku dhaqan tahay ay ku cifataa mashruuca Jigjiga phase 2 BEC weeyaan oo 25% kaliya ku soo kordhiyay su'aashan ku weydiinaya waxa weeye maalin dhaxdaas madaxweynaha deegaanka Soomaalida wuxuu la shiray ururadii mucaaradka ahaa iyo ururkii on left idinka aad samaysateen markii uu shirkaas u dhacay waxyaabaha laga hadlayay waxyaabo badan buu ahaa laakiin sidaan xogta ku hayno dowladda maamulka Abiy wuxuu go'aansaday waji ah in mucaaradku uu percentage uu ku lahaado percentage-kaas oo ah ilaa la leeyahay waa 20% iyo wixii la mid ah arrintaas sidaa ah maxaad deegaankeenna 20% noocee ayaad siinaysaan waxaad leedihiin intaasoo kursi aan idin siinaynaa intaasoo xildhibaan baa lahaanaysaan maxaase ka jira waxaan waa laleeyahay Axmed Yaasiin horta aad ugu hawlgelin meel laga leeyahay iyo meel lagu yiri hawsha ma maqlaan percentage loo qiraaraday oo loo gooyay xisbiya mucaarad la yiraahdo ayaga hal siiyo gundhiga ma jirto soo adiga madaxweynaha ma sheekaysataan miyaa idinkoo iskama warhaysan meesha ka madaxweynaha iyo aniga midna gaar noo khusaysan ma waxa weeye waxaa tiraaday waxba ma ogi wuxuu madaxweynaha ku soo hadlay ma garanayo tanna waxaa leedahay sidoo kaleeto wax aan official ahayn oo meel official lagaga wada hadlay ay jirin yani madal dawladeed oo official aan laga wada hadlin baad ka sheekaynaysaa haddaan ogahay xataa waan ogahay waxaan ku dhihi maaha sababtoo ah wax saas discussion siyaasadeed oo nooca u eg meel lagu hayo aanu qayb ka ahay ma jirto meel aan qayb ka ahayna dee waxaasaan maqlay meelaha ka maqlay dee nin weyn lama soo jirtaba aan ku soo koobo onelef qolyaha la yidhahdo ama yani kuwan hadda nala jooga ama kuwa banaanka u dudsan annaga xisbiga onelef cidda maanta keli ee sharciyadda haysateen la shaqaynayno waa shirka waagi dhaweeto yani guddigan doorashooyinka hay'adan doorashooyinka waddanka cidii ay aqoonsiga siisay ee shirka qabsatay ee golo dhexe iyo midqaana qaab dhismeed dhisatay ee certificate-kii sharciyadda haysata weeyaan ama maanta ha noqdo noqdo ama cid kale ha noqdo
mana axmed intaana deelqaaf bay kugu tahay annagu onalef ma anaa samaynin ma anaan mataqaanaa onalef aanu samayno hadda ega deegaanka joogtada ma jirto cidda maanta meeshan joogta onalef sheeganaysa ee hoggaanka sheeganaysana hadda onalef haddaa taqaana anigu intaan deegaanka jooga magaca ugu badan maqal jiray onalef ku maqal jiray iyo ciddii halgankeedii iyo hoggaaminteedii iyo siyaasaddeeda qaybta ka qalbi dhagax buu ahaa qalbi dhagax abdiraxmaan onalef buu siiyey asagaana usoo dhintay isagii baana eega haystee waxaan anu siinayo isagu waan gartay gabagabadii percentage-ka igaga hadal kuraasta dowladda taana wax la yiri miya iyadana ma prime minister kisna ma oran taas jira iyo meel aan anu hawsha ku maqlay adiga un baan hadda ka maqlaa meel laguma tashtaan u maleynaya meel tashal ma adiga waxa weeye duuflaalka suuqa lagu sheekaysanayo yaa waxa haysta inuu official police discussion haddii ay mucaaradkii ay saas leeyihiin haddii maamulkii uu saa leeyahay haddii prime minister uu leeyahay siyaasadda mucaaradka intaan ku dhammaystiro siyaasadda mucaaradka aan ka qayb gelino xasaasiyadahan siyaasadeed ee jira sidee loo soo yareeyaa sidee political actorska siyaasadeed ee jira ay si harmony u wada shaqayn karaan shaqadaas waa shaqadan maalin walba ka shaqaynayno in laysa soo dhoweeyo tartan xalaala la galo يعني حنفت سياسة laga saaro wixii dan inoo wada ah la isku taageeri karo la isku daro wixii xalaal loogu tartami karo loo tartamo waa hawsha jirta weeyaan illa kiis la leeyahay 20% baan meel idin dhignay mucaarad baatiina kaale ku soo hirta ma jirto 1% meel looma dhigayo shacabka go'aaminaya cidda ay ayagu ay maxaan ku dhahay ay inay dawlad u samayso maamusha hadii shacabku uusan dooranin wuxuusan shacabku kalsoonidiisa ku qabin annagu jeebkana ka siin mayno ka qayb gelina waa aragtay waa laga qayb geliyo duwaakan kaabineedka noo dhex fadhiyaan ama mas'uul waxa weeye waxa intii aad xukunka hayseen hal qabiil baa goboladaas oo dhan maamulayay dad badan waxay ku doodayaan in saami qaybsiga dadyooga qaarkiis lama siiyo sidaas aawadeed ayay deegaamadii khilaafyo badan oo qabiileed idinku siyaasaddiina aawadeed ay dadkii isku wada dhacayaan ama ha ahaadaan kuwa deegaanka gudihiisa jooga oo qabiil ka hadlaya oo dadkii kala qaybsameen marka arrintaas dadkii inaad kala qaybinaysaan oo mar walbaba hal gruub magaalo walba ama gobol walba hal gruub aad kor u qaadaysaan kuwo kaleetana aad hoos u dhigaysaan maxaad uga jawaabaysaa anuu ma aaminsanay horta arrintana hal qabiil baa meesha jooga waa run dadka hogaaminta qaarkood tiinarkood inuu dheeraada laga yaaba oo muddo uu ruuxa hogaamiyihii uu joogo ruuxa markii xilka loo dhiibay ee xisbiga xukuumadda xilka u dhiibaan hal qabiil baa isku badbadishaan qabiilkii baad keenaysaan ma hadduu shakhsigaasi xilka haya uusan dhib qabin maadaama uu reeb yahay dee cidna xil uga qaadi mayso xilligii loo arkay inuu shaqadii loo idmaday iyo xisbigii iyo xukuumaddii talada u dhiibay la shaqayntoodii uu ku fashilmo ama uu ku liito unbaa la bedeli marka waqtiguu joogaya shakhsiga shaqadiisay ku xidhan tahay intaanoo ka mid ah anigu shakhsi kama hadlaya anigu waxaan ka hadlayaa matalaadana waxa weeyaan dadku de كل ده باش وبصل ويان وماشى لقى وروح سوا قبيل هلك قبيل هالقبيل بتشوفه إن ضوضاء صعوبة هندية وحلا بربر دقيقة ضوضاء عدي ودين لقى دقيقة سوا بهانتاي قبله ذيك الدويهين قبله وحاجرته diversity dadka community-ga meesha degan ay farabadan yihiin competition ka internal gudahooda ka dhaxeeyay iyo in u tartankooda uu iska badan yahay gobolana waxaa jirta sad qaybsiga siyaasadeed ee heer degmo yaala gobol yaala heer degmo yaala si harmonized ah oo maxaan ku dhahay dadku de sad qaybsi siyaasadeed u sameeyo intii qoonta siyaasadeed ka dhaxaysaba lagu kala qaybsanaya jirta in badan oo kamid ah dhib kuma qabaan in badan oo kamid ah ninka gobolka jooga gobolka gudoomiyaha ka waa sad constituency loo tirinayo oo cid heer deegaan joogta xaq u lahaasba inuu yimaado maadaama uusan heer deegaan imanin inuu gobol jiro iyo balansiga lagu saxayaa inuu sidaas marka yani inta badan ka dambeeya jira waxaan wax iska random ma aha waan gartay hadda waxaan ku leeyahay gobolka Shabeelle ma waxaad leedahay afartii qof ee isku daba bedeshayba waa hal group uu noqonaya sad kala qofka kuwa loo sameeynaya kan inta badan gobolka Shabeelle dadka hogaamiya Shabeelle kaliya waxaad example baan ka wada laakiin nogob waa sidoo kale Shabeelle iyo nogob inta badan ba يعني political arrangement-gan hadda jira
sadadka la kala qaybiye constituencyada la kala siiyey qayb ka mid ayaa gobolka tagay hadda tusaalahan gudoomiyaha gobolka Shabeelle matalaad siyaasadeed oo dad loo xisaabinayo weeyaan haddii heer deegaan wax iska bedelo hadda uu iska bedelo waad arki doontaa uu isbedeli doonaa hadduu heer deegaan wax iska bedelo shaxdaasi way wareegaysaa laakiinse waxaan waxa weeye waa political representation